Iiraan waxay leedahay awood dhammaystiran. Waxay faragelin ballaaran oo muuqata ku leedahay dagaalada ugu waaweyn ee adduunka ka socda. Hogaamiyaha Iiraan waxa uu maalgeliyaa maleeshiyaad ka dagaalama qaaradaha adduunka, xitaa waxay dagaal toos ah kula jiraan Israa'iil. Haddaba intee ay la eg tahay awoodda dalka Iiraan? Waxaan isla eegaynaa istiraatiijiyadaha ugu waaweyn ee Iiraan isticmaasho si aan u ogaanno awoodda uu leeyahay dalka Iiraan. Ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Iiraan waxay si istiraatiijiyad ahaan u dhex taallaa Bariga Dhexe iyo inta soo hartay ee Aasiya. Waqooyiga waxaa kaga yaala Ruushka oo ah xulafaheeda ugu muhiimsan. Koonfurta waxaa ka mara waddooyinka ganacsi ee caalamka ugu muhiimsan. Marka la eego qariirad ahaan, waxay ku taallaa meel aad u muhiim ah. Iiraan waa waddanka ugu weyn Muslimiinta Shiicada ay ku nool yihiin adduunka, halka waddamada deriska badankoodu ay yihiin Sunni. Waddamadaas waxaa ka mid ah Sacuudiga oo ah cadowga ugu weyn ee ku leedahay Iiraan Bariga Dhexe, tartan xooggan uu kala dhexeeyo. Iiraan waxaa xukuma wadaad lagu magacaabo Ayatollah Ali Khamenei, kaasoo ah hogaamiyaha ugu sarreeya dalka in ka badan 35 sano. Kacdoonkii ka dhacay dalka Iiraan sanadii 1979 waxa uu asal u ahaa mid ka dhan ah reer galbeedka iyo Maraykanka. Tan iyo kacdoonkii Iiraan waxay u aragtaa Maraykanka iyo Israa'iil inay yihiin cadowgeeda ugu weyn. Labada dhinacna marar badan ayay beegsadeen dalka Iiraan. Qaasim Sulaymaani oo ahaa sarkaal sare oo Iiraani ah ayaa waxaa dilay Maraykanka sanadii 2020. Waxa uu noqday mujaahid ku dhex jira indhaha nidaamka Iiraan. Waxaa la aaminsan yahay inay Israa'iil ka dambeysay weerarka 7 sarkaal oo militari ah oo lagu dilay duqeyn cirka oo ka dhacday qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay dalka Suuriya. Haddaba Iiraan oo ka jawaabaysa weerarada Maraykanka iyo Israa'iil waxay qaaday tallaabooyin xooggan oo ay ku muujinayso awooddeeda. Tallaabooyinkaasina waxaa ka mid ah hubeynta maleeshiyaad la dagaalama Maraykanka iyo Israa'iil, soo saaridda diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn, iyo horumarinta barnaamijkeeda nukliyarka. Aan ku bilowno taageeridda Iiraan iyo maleeshiyaadka. Bilihii ugu dambeeyey, xoogagga Xuutiyiinta ayaa weeraray oo qallibay maraakiib ganacsi oo ku sugnaa Badda Cas, iyadoo dhowr shaqaalena la dilay. Xuutiyiintu waa kooxo maleeshiyaad oo fadhigeedu yahay Yemen, waxaana taageera dalka Iiraan. Waxaa la sheegaa inay isticmaalaan sirdoonka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer uu leeyahay dalka Iiraan. Xuutiyiintu waxay Israa'iil u arkaan cadow, waana halka ay ka siiman yihiin Iiraan. Weerarada ay Xuutiyiintu ku qaadayaan Badda Cas waa jawaab ay kaga jawaabayaan dagaalada Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. Ka hor weerarada Xuutiyiinta, 3 meelood meel maraakiibta caalamka waxa ay marayeen Badda Cas. Tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen, kharashaadka caymiska maraakiibta ayaa cirka isku shareeray. Inta uusan dagaalka bilaabin, maraakiibta ayaa waxa ay marayeen halkan si ay u gaaraan qaaradda Yurub. Dagaalada kadib, maraakiib badan ayaa hadda ka fogaada maridda Badda Cas, ayagoo mara waddadan aadka u dheer si ay u gaaraan Yurub, taasoo xitaa kor u qaaday qiimaha raashinka suuqyada Yurub. Kooxaha kale ee maleeshiyaadka ay Iiraan maalgelisa waxaa ka mid ah Xisbullah oo ka dagaalama waqooyiga Lubnaan. Dagaalada u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah ayaa ka sii daraya xadka. Waxaa kala jira kooxooyin maleeshiyaad oo kale oo ka jira Ciraaq, Suuriya, Baxrayn iyo Xamaas oo ku sugan dhulka Falastiin. Khubarada qaar ayaa u arka inaysan Xamaas si dhab ah u hayn maleeshiyaad toos u hoos taga Iiraan, laakiin ay ka helaan dhaqaale, hub iyo tababaro. Kooxda dagaalyahanada Xamaas waxay weerar ku qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar sanadii la soo dhaafay 2023, taasoo Israa'iilna ay kaga jawaabtay duqeyn ka dhan ah marinka Gaza. Iiraan waxay u hubaysaa kooxahan inay yihiin cirifka iska caabinta ee ka dhanka Israa'iil, Maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan. Diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn waa qayb kaloo ka mid ah xeeladaha dagaalka ee dalka Iiraan. Sababo la xiriira cunaqabateynta caalamiga ee saaran dalka Iiraan, ma awoodo inay hesho tiknoolajiyada horumarsan ee laga heli karo waddamada kale. Sidaa darteeda waxa ay bilowday naqshadeynta iyo soo saaridda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo qiimo ahaan jaban laakiin awood xooggan ku leh goobaha dagaalka. Waxaa la rumaysan yahay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay u dhoofiso in ka badan 20 dal oo ay ku jiraan
Tajikistan, Armenia, Suudaan, Itoobiya, Venezuela iyo Aljeeriya. Sidoo kale Ruushka ayaa u isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan dagaalka uu kula jiro Ukraine. intaas waxaa sii dheer Iiraan waxa ay leedahay gantaalada ridada dheer ee isaga goosha waddanka waddan. Iiraan iyo maleeshooyinkeeda waxay ku tuureen boqolaal gantaalaha Israa'iil sannadan aan ku jirno 2024. waa weerarkii ugu horreeyey ee toos ay Iiraan ku qaado Israa'iil abid. Iiraan waxa ay sheegtay in weerarkani uu ahaa aargoosi loogu jawaabayo duqeynta cirka ee Israa'iil ku qaaday qunsuliyadda Iiraan ay ku lahayd dalka Suuriya ee aan horey u soo sheegnay. barnaamijkeeda nukliyeerka. heshiiskii u dhexeeyey waddamada adduunka ugu waaweyn iyo Iiraan si ay u soo saarato nukliyeer waa ay ku guulaysatay, laakiin waxaa shardi looga dhigay inay limid garayso awooddeeda nukliyeerka. haddaba markii la doortay Trump sannaddii 2016 waxa uu gebi ahaanba ka baxay heshiiskii laga gaaray arrimaha nukliyeerka dalka Iiraan. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. intaasi kadib Iiraan waxa ay la timid istiraatiijiyo kale ay ku samaysan karto awood nukliyeer, waxayna u wareegtay dhanka Jaynaha iyo Ruushka. Jaynaha waa waddanka iibsada shidaalka ugu badan ee dalka Iiraan, Ruushkana waxa ay wadaagaan istiraatiijiyo dagaal. maraakiibtan waa maraakiibta Iiraan, Ruushka iyo Jaynaha oo ka shaqaynaya inay si wadajir ah u dhistaan maraakiibta dagaal ee quusa. sidoo kale Iiraan waxa ay ku biirtay ururka BRICS oo ah urur dhaqaale oo cagsi ku ah midka reer galbeedka iyo Mareykanka. BRICS Iiraan waxaa kala tirsan 5 waddan oo kale oo ay ka mid yihiin labadeeda saaxiib ee Ruushka iyo Jaynaha. arrimahan oo dhan waxay ka caawinayaan inay Iiraan yeelato awood nukliyeer oo dhammaystiran. gudaha dalka. gudaha dalka waa meesha keliya uu ku liito hogaamiyaha dalka Iiraan. sannaddii 2022 dhimashadii Jina Mahsa Amini oo ku dhimatay gacanta askarta waxa uu dalka u horseeday mudaaharadyo lagaga soo horjeedo dowladda iyo hogaamiyaha Ayatollah Ali Khamenei. bilowgii mudaaharaadka waxa uu ahaa garab istaag gabadha ku dhimatay gacanta booliiska, laakiin mudaaharaadka ayaa isku rogay mid siyaasadeed iyadoo la soo saaray musuqmaasuqa dalka ka jira, cabsigelin shacab, afduub, faqiirnimo iyo dowladdu inay tahay mid dictator ah. dowladda mudaaharaadyadaasi waxay ku soo gebagabaysay awood iyo in la xirxiro mudaaharaadyaasha, taasoo ku dhalisay bulshada caro aad u xooggan. haddaba maxaan ka baran karnaa arrimahani oo dhan? dalka Iiraan waa dal si guud ah markii loo eego leh awood. waxa ay garanayaan sida cadowga loogu dhex abuuro xasilooni daro. waxa ay hubayaan dagaalyahanno ka soo horjeeda reer galbeedka Israa'iil. waxay haystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo aad u awood badan. sidoo kale waxay dardargelinayaan awooddooda nukliyeerka. laakiin gudaha dalka waa mid ay ka dhex jirto musuq, gaajo iyo xorriyad la'aan. haddaba ilaa iyo intee ayay socon kartaa awoodda dalka Iiraan oo sanadba sanadka ka sii dambaysa sii koraysa? waa su'aasha ugu weyn ay maanta dunida isweydiinayso. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay fadlan noo like garay si uu muuqaalka dad badan u gaaro. haddii aadan nagu soo biirin waxaan kaa rajaynaa inaad nagu soo biirtid oo aad kanaalka subscribe saaratid, gambalaalkana aad furitid si ay kuu soo gaaraan muuqaalo walba oo aan soo gelino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.